ninkan waxaa la yiraahdaa Cabdulaahi aabbihiis wuu dhintay, Allah ha u naxariistee. Wuxuu la nool yahay ayeeydiis oo da' ah. Ayeeydiis waxay ka codsan jirtay inuu guursado. Maalin ayuu aaday shaqadiisa, wuxuu arkay gabar aad u qurux badan. Markaasuu ayeeydiis u imaaday oo ku yidhi, "Ayeeyo, waan helay gabadhii aan doonayay." Ayeeydiis aad bay ugu faraxday arrinkaas, wayna isku guurisay. Arooskoodii ayaa dhacay. Maalin asagoo guriga ka bixi raba ayay ku tiri, "Cabdulaahiyow, lacag ayaan rabaa." Wuxuu ku yidhi, "Sootaan shalay ku siiyey lacagtii aaway?" Waxay ku tiri, "Anigu lacagtii shalay way dhammaatay, ee hadda lacag kale sii." Markuu arkay inaysan lacagta ka foqeyn, wuu siiyey. Naagtii duqda ayaa dareentay in gabadhani ay rabto ninka lacagtiisa keliya, aysan rabin asaga. Naagtii duqda ayaa gabadha ku tiri, "Naagayda, ninkayga ma waxaa rabtaa lacagtiisa keliya?" Waxay ku tiri, "Naagayda, adi waxba kaama qosayaan, gurigana waan kaa saarayaa haddaad buuq bilowdid." Waxay ku tiri, "Guriga wiilkayga ayaa iska leh, maxaa iga saari kartaa?" Waxay aroor ka mid ah ayay qaylisay oo tiri, "Alla ba'ayey, Cabdulaahi ayaa soo orday." Wuxuuna ku yidhi, "Maxaa kugu dhaca xaaskaygii?" Waxay ku tiri, "Anoo dharka mayranaya ayay biyaha ii goysay." Waxayna ku tiri, "Hooyo, waa beenteen, gabadhan been ayay sheegaysaa." Cabdulaahi wuu xanaaqay, wuxuuna ku yidhi hooyadiis, "Maxaa saa u samaysay hooyo? Haddaad gabadheeda neceb tahay, maxaa saas oo dhan ugu galaysaa?" Gabadhii kale aad ayay u faraxday. Arooraha ka mid ah waxaa soo gashay haweeneydii dhashay gabadha lagu guursaday gurigan. Waxayna ku tiri, "Adigoo uur leh, seebaad dhulka u xaaqaysaa? Caqliga miyaa leedahay? Aaway duqdii guriga joogtay, may xaaqda ayaga." Qayladii waxaa ku soo toosay Cabdulaahi, wuxuuna yidhi, "Adigu soo kumaana irohan mar hore, iska daa dhulka aa xaaqaysid, hooyo ayaa xaaqayse." Hooyadii ayaa timid oo tiri, "Maa maxay buuqa dhacaya?" Wuxuuna ku yidhi Cabdulaahi, "Maxaa ugu tiri gabadha? Waa ogtahay inay uur leedahay." Waxayna ku tiri, "Anigu uma dirsan, ee ayada ayaa gashay shaqada." Hadda ka bacdi waxay tiri, "Aniga ayaa xaaqaya, ee aniga ha lii daayo." Dhulkii ayay xaaqi jirtay, weelkana way meeri jirtay. Gabadha kalena aad ayay meelaha iskaga badboodi jirtay oo iska ciyaari jirtay. Habeenkii marka la gaarana way jiifsan jirtay. 9 bilood kadib gabadhii way dhashay. Gabar yara ayay dhashay. Cabdulaahi ayaa xaaskiisa ku yidhi, "Anigu waan tagayaa, cabaarna ayaa soo maqnaanayaa." Waxayna ku tiri, "Xagee aadaysaa?" "Shaqo ayaan u baxayaa," ayuu yidhi. Waxayna ku tiri, "Iska taxadar." Wuxuuna ku yidhi, "Haye, hooyo ayaan kaaga tagayaa." Wuxuuna ku yidhi, "Hooyo, ii ilaali gabadhan iyo gabadha yarta ay dhashay." Wayna sii salaamtay, wayna sii sabootisay. Isla markiiba waxaa guriga yimid gabadha hooyadeed iyo aabaheed. Waxayna ku shaqaysanayeen ilanka hooyadiis bay ku shaqaysanayeen. Waxayna odaygana wax ku lahaa, "Waxaad u dirsada, waatan shaqaalihiinii." Inankii yar gabadhii aabaheed wuxuu ku yidhi, "Ilmaha yarka ii dhiib." Wayna u dhiibtay. Gabadhii iyo hooyadana way sheekaysanayeen si ay duqdan guriga looga saaro. Ninkii ilmaha yar wuxuu u wacay nin ilmaha gata, wuxuuna ku yidhi, "Ilmo yar ayaan ku hayaa, ee ii imow." Naagta jaariyadda ama ilanka hooyadeed way maqlaysay sheekadaas, wayna la socotay wax kasta uu sameynaya ninkaas, wayna soo baxday. Ninkii wuxuu ku yidhi, "Gabadheedii waa la iga dafay cunuga, ama soo iga lumay." Wax saas ayuu ku yidhi. Xaaskii waxay wacday Cabdulaahina waxay ku tiri, "Cabdulaahiyow, gabadheeni waa la xaday." Naagtii ayaa u tagtay booliska. Waxayna ku tiri, "Ninkan ayaa qaatay ilmihii, waana la kaxeeyey ninkii." Naagtii gabadha dhashay waxay u mahadcelisay booliskii. Booliska ayaa yidhi, "Anaga noo mahadcelin gabadhan la'aanteen, amase ilanka hooyadiis la'aanteen waxba maan soo qaban lahayn, ayada u mahadceli."
gabadhii waxa ku tiri aabe maxaa saas igu samaysay weligay macnaha wax kugu sameeyey. Gabadhiina waxay u mahadcelisay ama raaligeli ka dalbatay inanka hooyadiis way bartaasna ayay isku cafiyeen. gabadha aabaheen waa la xiray isla markiiba Cabdullaahi oo degdegsan ayaa yimid waxaana looga sheekeeyey wax kasta oo meesha ka dhacay. wuxuuna raaligeli ka dalbaday oo ku yiri hooyadiis hooyo ka raali noqo waxaan noqday wiil xun. naagtii gabadha dhashayna waxay ku tiri ani xataa wax xun ayaa kugu sameeyey ee iga raali noqo. waxay ku tiri waxaas waa iska caadi laakiin mar dambe ha u laabina waxaasoo kale waa wax laga xumaado. qoyskii intaa ka dambeeyey waxay noqdeen qoys aad u qurux badan oo u faraxsan. sug ha bixin waa daawatay waa qosashay walaal macaan waxaa kugu leeyahay hadday taageerin Hamza Films Vlogs waa wiil walaalkaya waa wiil qalbi fiican. subscribe saara ilaahay caaw isbedel aan ka arko ilaahay ka labta waxaysaa 181 waxaan ka rabaa 200 iyo 300 insha Allah intaas anoo ninkeena waxaa ka heli kartaa commentiga ugu horeeya ama waxaa ka heli kartaa description-ka ayuu yaalaa walaal macaan kala kici waa ka cusubnaantaas weligaa waxaan iga cusub one love.